Kani wuxuu ka mid yahay bangiyada ka dhaca Afrika. Ninkani maskiin ayuu lacag siiyay. Dan ka bacdi taleefanka ayuu soo baxsaday. Taleefanka ayuu wuxuu dhahay dad lacag faals haystaan ayaa ii agdhow. Ay soo gaaray lacag faals ayaa haystaa dadkan inay soo galiyaan rabaa wadanka. Asla ninkii maskiinka uu yaabay. Wuxuu taagan yahay yaab. Ninkii taleefankiisa ayuu iskii hadlooyaa. Ninkii maskiinka wuxuu dhahay lacagtaada iga qabso. Adiga ayaa ii dhibto. Maaniga ku dhiibay lacagta ayuu taagan yahay ninkii bangiga sameynayay. Isla markaa wuxuu taagan lacagtaada iga qabso. Kuma dhiibin ayuu taagan yahay kana taleefankiisa ayuu ku sii hadlooyaa. Wuxuu taagan yahay soo gaaray ay agdhow yihiin. Ninkii maskiinka lacagtaada hoo ayuu taagan yahay. Ninkana taleefankiisa ayuu ku dalmo wuxuu taagan yahay lacag ay hayaan. Taleefankii ayuu damiyay. Isla markaana ninkii maskiinka uu yaabin war lacagtaada iga qabso ayuu taagan yahay. Lacagtaada iga qabso. Lacag ani kuma dhiibin ayuu taagan yahay. Lacag kale ayuu ugu darabo lacagtan. Wartan ka marna taa horna dhiibtana iga qabso ayuu taagan yahay. Isla markaana uu yaabin yahay ninkii maskiinka uu istaag wuxuu dhahay lacagtaada iga qabso. Lacagtaada iga qabso. Ninka bangiga sameynay ka maadeysa ayuu isleeyahay. Isla markaana ninkii maskiinka wuxuu taagan yahay dhiita war lacagtaada iga qabso. Iga qabso ayuu taagan yahay lagu qaban ayuu isleeyahay. Isla markaa lagu xirin amba dhibaato kaaga soo gaar. Isla markii ninkii wili wuxuu taagan yahay war lacagtaada iga qabso. Ninkii uu diidan yahay lacag ani kuma dhiibin. Dad ayaa meesha ka fiirsanayeen oo la yaaba ninka wuxuu sameynayo maskiin ku sameynayo. Lacagtii ayuu ka tuuray maskiinkii. Ninkii kale uu ku soo tuuray. Wuxuu isleeyahay wili yaa lagu arki meesha aad joogto lacagtaada lagu qaban hoo ayuu taagan yahay. Isla markaa dad baa ayaa imaadeen. Waxaa imaaday nin kale oo soo galay arinta la yaaban waxa ka dhacay meesha. Isla markaa nin bangad wata ayaa imaado qudha ka jar isdhahayo ninka wuxuu sameynayo. Markaas wuxuu yiri arinta uu sheegay waa bangi ayuu dhahay arinta wax kama jiraan way qoqosleen way yaabeen. Maxaa meeshan kaaga baxay bangiga la sameynayo markii la joogo Afrika? Waa halis waxa laga yaabaa bangiyada qaar iska jira in halis ku gashid. Ninkan maanta haduun arki lahayn ninkaas oo bangad soo wato waa huwaal qudha ayuu ku jari lahaa sababtoo wuxuu sameynayo. Afrika markaan joogno way u fududahay dagaalka in la sameeyo amba waxaan dilno. Iska jir bangiyada qaar waxa laga yaabaa inaad halis ku gashid. Haddii aadna soo booqato nagu cusub tahay subscribe-ka naga hilmaamin hada horna la joogto lacagtana si bangiyada qaarna waxa laga yaabaa inaad halis ku kartid marka iska jir. Waasaas markii haddii waa u sheegay waa la qoqoslay waa la farxay laakiin waa huwaal haduun arki lahayn ninkaasi oo sii wada lahaa inuu ninkii kale qudha ka jari lahaa. Marka la iska jiro bangi aad sameynayso waa inaad ka fiirsato wax walba inta falin. Soomaali waxay tiri intaadan falin ka fiirso. Marka anaga hadaan nahnay wax inta sameynaysi ka fiirso inta isleeda wax maadeysi ama sameey laga yaabaa in dhibaato amba saameyn kaaga soo gaarto.